نوي ديني ندت فربضن ولا هل نبكار له مجلسه وهن اللي يلاهدو أيوب كارلو وحكم ديها عدوين وين سيكي أيوب كارلنا وسيكي ونك أيوب كارل كتجي مشوا جو dadka taariikhdooda iyo waxooda dhan way wada qoran yihiin Ayub Carlo dadka kale ma ka hadlay laakiin ninkaas in laga hadlo runta loo sheego wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay kuma darnaadee isku dayay markasto intaasoo sano isku dayay xataa xilligii Shiino culay iyo asaga iyo Siki dagaalada ka dhaxeeyeen waxuu geed gaaban iyo geed kor u waxay in uu soo saaro qeybtiisa xataa wuxuu ka hadlayay qabiilkiisu xataa wuxuu ku sheegay inuu yahay nin sheegada wuxuu yiri Siki waa sheegad the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ وهجاك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدمن دين سلام يا الله سومالي دمالك السوجو تاني سي والبو تنو دقيسان إسان نودا ونسان وولالكين أرح أما بفرح ميديا سيدا عاد تايتل كعوانك ويهي runtii horta aad baan idin salaamayaa haddii tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay janaalkan fadlan waxaan ka codsanayaa si ixtiraam iyo sharaf iyo Soomaalinimo iyo walaaltinimo ay ku jidho inaad subscribe noo saarto like-na aad tiraahdo fikirkaada quruxda badanna aad nala wadaagto waxaad ugula wadaagi kartaa inaad codkaada ama maxaa jiray qoraal soo qorto haddaba sida aad ciwaanka ku aragteen caaway maantay waqti walbay ku tahay kulli aniga xilliga hadda video aan dubay maalin habeen bay tahay waxaan rabaa inaan ka hadalno barnaamij maantadan oo xadda soo hawada soo galay oo social media la isla marayay oo barnaamij kale ma ahan waa barnaamij CK Umar Kirish waayo Umar Kirish laga faafiyay fadeexad Umar Kirish laga faafiyay CK waxaan ku haynaa waa YouTuber ka haddaan xaqiiqda ka hadlo weligii wallahi ma arag shakhsi ahaan ma garanayo xiriirna naga ma dhayo of course this aan garanayn laakiin waa shakhsi jecel dadka walaalihiisa Soomaaliyeed waa shakhsi ceeb ka dheer waa shakhsiga ugu sareeyo markii subscription la dhaho numberka ugu sareeyo Soomaalida caawa waxaan rabaa meeshan inaan kala wadaago qof walbo aqli leh ee garanayo meel fog wax ka fiirinayo macnaha behind the scene wax ka fiirin karo qofka markuu horumar gaaro uu heer gaaro wuxuu yeelanayaa cadow hadda runta ku sheegaa marka horumar gaartid oo aad meel target gaartid cadowna waa yeelanaysaa saaxiibana waa yeelanaysaa marka inaad cadow yeelatid waxay kamid tahay guusha haddii aadan cadow lahayn oo aadan haysan dadku challenge gareeyo dadku nacab hadaadan haysan macnaheedu waxay tahay waxa sameeyay sida boorina marka waxaan idin hayaa CK cadowgiisa aad u badan Umar Kirish waxaan dhihi karaa waa YouTuber-ka wuxuu ka mid yahay YouTuberada Soomaaliyeed ee ugu qalbiga wanaagsan ugu fiican ugu jecel dadka walaalihiisa ugu wadaniysan Umar Kirish aniga aase Ismail wada waxa waayo wallahi baan idin ku dhaartay inaan been idin sheegay Soomaalidu qabiil iyo qabyaalad bay fiiraysaa Umar Kirish isku qabiil mani hatta isku ma dhaweyn qabiilahana dadku ma taageeriyo laba dad oo kala soo kala horjoodaan haddana saas ay tahay Umar Kirish waa Soomaali waa muwaadin Soomaaliyeed waa great guy ilaahay kuma darnaaday qofka aqligiisa waxa jiro dad aan ilaahay kuma darnaaday ku fakirin horumar inay gaaraan laakiin ku fakiro dadka kala cuyubtooda inay banaanka soo dhigaan wallahi baan ku dhaartay haddaad qof walaalka oo muslim ciibtiisa hadda raadisid ilaahay jalla wa ala wuxuu soo bandhigayaa ceebahaada hal ceeb oo qof bil aadan oo walaalka leeyahay hadda qarisidna 12 ceeb oo ilaahay ku asturayo
marka qofka ku fikirayo hebel aan ceebeeyo waa qof asaga hilmaamay ceebihiisii. hadda idin sheegaani Soomaalida runta dadka looma runta ma dhageystaan dadka. ninka ku fikirayo ilaahay kuma darnaaday hebel aan ceebeeyo Cumar Kirish maanta aan ceebeeyo ceebihiis aan soo waxay intuu sawirro qaldan soo dadka ka soo qaado waa nin already hilmaamay asaga ceebtiisa. sababtoo ah markaad tiraahdid fartayda fiiri markaad tiraahdid qof ku fiiqdid tana adiga kugu soo fiiqmayso. inta fiiri saana tiri waa shan farood afar aday kugu soo fiiqmayaan. xigmadan halkan ka faham. qof baa saas ku tiri kan aanay igu joodaa tan aanay igu joodaa saddexdaan tan aanay igu joodaa. marka waxay la mid tahay sawirkan hal qof hadaa tiraahdo ceebtiisa asaan tiraahdo inta kale aday kugu soo fiiqmaysaa. dadka walaalahaya ee Soomaaliyeed ee sawiradaas social media la socdo ee walaalkii Cumar Kirish lagu ceebeenayo ee la rabo sharaftiisa in lagu dilo fadlan walaale qofkan waa adigu kale cadow badan uu leeyahay. cadowgiisa ha u jabinin. barnaamijkan hadda la wado ee la joojinayo ee la waxay hadaarid in qofka caadi uga hadashid sawir ha soo qaadaneen ka hadal qofka walaalka wanaagiisa ka hadal waxaan dadka inay joojiyaan ka hadal laakiin sawir xun ha soo saarin thumbnailkaada ama titlekaada. ha soo saarin qofkan waa qof walaalka inaad ceebeysid adiga ceebtaada kuma asturmayso. marka waxaan fariin u dirayaa ninka la yiraahdo CK Cumar Kirish saaxiibkaygu ma garanayo videogan inaad dhageysan doontid ama aad daawan doontid. Cumar Kirishow waxaa tahay haliyey Soomaaliyeed, waxaa tahay legend tahay cadow badan inaad leedahayna waxaad ogaataa inay ka mid tahay guulahaada. mar walbood aragti inaad cadow leedahay ogow in guushaada aad qofkaas ka sarreysid. sababtoo ayaan yuurta sideedaba meeshii gaari weyda uf bay tiraahdaa. marka cadowga badan ee isku dayay inay adiga sumcadaada waxay rag badan oo YouTuber Soomaaliyeed oo hadda aan dhigi karo hebel baan waxaan u dhaaran karaa inay ka mid yihiin ragga barnaamijka rag aan hebel aan dhigi karo oo Ayub Kaarle ka mid yahay. dadka barnaamijyadan wado ee waqtiga ku bixinayo ilaa kuma darnaaday gelinaya kii kale waxaana cidna weydiinaynin dad fara badan waa la hal nin baa ka hadlaya magaciisa waa nin la yiraahdo Ayub Kaarlo wuxuu ka mid yahay cadawiinta ugu waaweyn CK. Ayub Kaarlana waa CK waa ninka Ayub Kaarle ka dhigay meeshuu joogo. dadka taariikhdooda iyo waxooda dhan way wada qoran yihiin. Ayub Kaarlo dadka kale ma ka hadlay laakiin ninkaas in laga hadlo oo runta loo sheego wuxuu ka mid yahay dadka ilaa kuma darnaadee isku dayay markasto intaasoo sano isku dayay xataa xilligii Shiino Culey iyo asaga iyo CK dagaalada ka dhaxeeyeen waxuu geed gaaban iyo geed kor u waxay in uu soo saaro qeybtiisa. xataa wuxuu ka hadlayay qabiilkiisu xataa wuxuu ku sheegay inuu yahay nin sheegada. wuxuu yiri CK waa sheegad. marka ma rabo inaan aniga hadda arintaas ku dheeraado laakiin fadlan YouTuberada aan ogahay ee barnaamijyadan ku jirto waxaan ka baxaa. CK waa nin walaalkiina Soomaaliyeed dadka inay guusha ku tartamaan waay laakiin ma ahan inay ayaga isku soo joostaan. aad baan idin salaamaya markii ugu horreysay haday tahay subscribe. Assalaamu calaykum.